runtii waa sida u sheegay Jamaal wax cajaa'ib ma aha mana noqonayso anna ila ma aha cajaa'ib in dawladdan wax qaban weyso sababta ah dawlad ayadii iska dhamaan la inta recordka jirta almost 5 jeer dawladdii la burburiyay oo ra'iisul wasaare waa kii labaad aan marayna 4 sano transitionka intaas oo ra'iisul wasaare maaragtay wasiir marba jagada laga qaado marba mid lagu waxay marka waa dawlad ayadii iska dhamaan la ta kalena waxa dawlad lagu xukumiyaa hal adeeg oo bulshada oo shaqeynaya ma laha hal wasiir oo xafiis leh oo uu intuu tago subaxdii u kicitimo maaragtay wax ka qabanaya ma laha oo ma laha maaragtay wasiir shaqadiisa waxayna maaragtay ra'iisul wasaare xafiis ma laha even iskaba dhaaf meesha waxay sugi laayihiin amaankii maaragtay aqalkii uu deganaa maaragtay loogu talagalay madaxda iyo madaxweynaha ay deganaayeen marka see dawladdaas aanba meel bad ku taagnayn maalintiina kafeega meelaha ku caba habeenkiina qayila sidee uga expect garaynaya inay dawlad dhan oo capability-gaas leh oo waa runtii siduu u sheegay waxaan ahayn dadkii Africa maaragtay number 1 ama number 2 aan ahayn inkastoo Soomaalidu faanto laakiin number 2 ba waan ahayn maaragtay xagga militariga marka laga fiiro marka militarigaas ayadoo la xuduudaas leh maaragtay capability-gaas leh oo wixiina dysfunction ay ku dhaceen sidee uga filanay dawlad intaas la eg amaba aan u soo jeedin inay wax qabato markay shirayaan hool loo xaaqo aan lahayn maaragtay hal venue oo uu ka soo galo maaragtay dhaqaale uu ka soo galo aan lahayn degadii ayna si effective u shaqeyneen airportkii uusan shaqeynayn maaragtay adeegyadii dawladda loogu talagalay aysan shaqeynayn maaragtay sidee uga filaysaa inay wax qabtaan ama ay sameeyaan maaragtay waxa teeda kale mana u arko inay dawladdan design loo dhisayba inay horta heshiisiin samayso waan iska leenahay dawladdan dawlad warlord la doortay waa Soomaalidu ma dooran laakiin haddana at the same time waxaa la yidhi maaragtay nintuu rasuul saxda asaa yaqaan Soomaalidu way daalanayd waxay tiri war waa iska aaminaynaa dawladdan hadiiba saas tahayba warlordkiiba ay hogaaminayaan oo doorana nin walba recordkiisa waa naqaana oo maaragtay dawladdan kamid ah laakiin haddana waa la aamin waxa la yiri bal aan aragna inay shaqeyso waa dawlad u soo jeesatay marka inay dadkeedii layso almost hadda recordka qoraysa 6500 oo qof ku dhintay magaalada Xamar let alone almost 1 milyan oo qofna displacement lagu sameeyay ama way qaxeen iska badaa kuwii qaxayeen caanay biyo loo geeyay waa looga daba tagay hay'adihii raashinka u wadaa waxa lagu yiri terrorist ama dad argagixisaa ayaad maaragtay wax siinaysaan haddii aad wax siisaana qaarkoodna waa la xoogay qaarkood waa la eriyay oo maaragtay hay'ado badanaa ka mid ah iska daa waxa kale oo ku cad maaragtay ninkii maxkamadda sare haystay oo ra'iisul wasaaruhu u appoint gareeyay inuu ilaa hadda xiran yahay asoo maxkamad la soo saaray odayaasha ka dhawaajisay way xirnaayeen hadda la soo daay maxaa lagu haystay wax maxkamada lama soo saarin inta qof dawladda dadka madaxda ka ah dawladdan hadda maaragtay dadka madaxda ka ah oo naqaano magacyadooda inta dad guryahooda kala baxan ay yiraahdaan $8,000 aan ku gadanaynaa dawladdiiba dawlad baa mushtari isku bedeshay marka dawlad ma aha loo dhisaan gareeyaba inay dib heshiisiin samayso inay waxayso tan kalena maxaakiimtu xilligii yaraa ay haysteen walaalka Jamaal uu ka dhawaajiyay dadka ay leeyahay nabaddarro ay keeneen compare adinku dadoo shacab oo maaragtay isku qiimeeya dawlad 6500 hal sano gudaheeda ku dishay iyo dad 6 bilood markay haysteen 6 bilood inta dhimatay ay ka yar tahay 10 qof adinku qiyaasta sameeya anigu ma aha taas inaan emphasis badan aan saaro laakiin waan ognahay Soomaalidan charge garanaysa nabadda aan helnay maaragtay New York Times dadka qora ajnabi waa nin maaragtay ajnabi ah asaa sheegay oo yiri weligeed Soomaaliya kama dhicin nabadda ay heshay 6daas bilood marka taasna charge-keeda isaasan kale Jamaal maxaa kaaga baxay hadalka Maxamed Tiici dawladda arrimaha waxa jirta dawladda ku meel gaarka Soomaaliya in maaragtay ayaa ina la eedeeyay oo waxyaabaha qaar ay qaadato maxaa u hagaaga isleedahay maxaa dhaliila Jamaal may horta dawladda sidaan hadday hore u sheegay waa dawladdii heshiisiina caqabooyin aad u fara badan la kulantay haba u badnaatay deganaansho la'aan waddanka aanan deganayn haddaan hadda fiirino dawladda waxa cajaa'ib leh yani qofka markii uu iska indha tiro waaqaca xaqiiqiga jira markuu qofka iska indha tiro waaqaca ayaa dila reality ayaa qofka disha ma ogtahay maxaa yeelay dawladda weli intay weerar qaaday wax ma ay laynin baydhabo iyadoo fadhida fiiri baydhabo iyadoo fadhida baydhabo ayaa lagu heeraariyey waxaa la yidhi baydhabo waan qabanaynaa jimcaha baydhabo ayaan ku tukanaynaa ayaa dadkii soo weerar yiraahdeen baydhabo markii dagaal ka dhacay u fiirsho meelaha uu dagaal ka dhacay waxay ka mid ahayd xaafado baydhabo ka mid ayuu dagaal ka dhacay ciidankii xamar ka yimid xamar ayaa waxaa caruurta loogu sheekeeyey in jihaad loo socdo oo gaalo baydhabo fadhida lasoo qabanayo been loo sheegay
waxaa lagu soo guray taragaa lagu soo guray ayagoo aanan qadaynin macawsyo qaba ayaa la janaad galaysaan markii baydhabo la keenay dowladda ma ay soo weerarin dowladda weerar ayaa lagu ahaa markuu baydhabo dagaal ka dhacay dowladda xamar markii ay tagtay uu madaxweynaha uu fadhiistay villa Soomaaliya 2 to 3 weeks waxaa lagu soo ridahayay hoobiyaa lagu soo ridahayay dowladda waxay lahayd war shacabka yaan lagu dhex dirarin fiiri xaqiiqda waaqaca jiro oo factska taas wey hoobiyaa lagu soo ridayay guriga madaxweynaha prime ministeraha assassination ayaa xamar laga sameynayay waxaa la dhahay war arrinta sida ma ahane sida ha laga daayo axmed diiriye wuxuu ahaa raggii ugu horreeyey oo BBC dowladda joogta BBC waxyaaba aad caqaloon uga rida xamar ku hadli jiray ana la hadli jirinin qof la hadli jirin aanan jirin oo waliba si in adeegi jiray uu soo doon u hadli jiray markii lagu yiri axmed diiriye digfer oo asaga uu ijaar u dad uga qaadan jiray oo guri dowlad ahaa liiday ka bax oo yiri guriga aniga iskale aniga qabsaday waa ajaayib marka processkii wixii dhacayay waaqaca runta ah haddii laga sheego Soomaaliya xal bay helaysaa laakiin haddaan aniga isku dayaayo Soomaaliya waxay ku mahmahdaa baadi kugu raagtay inaad leedahay moodaa moogta wax baadi ah oo dhumay haddaad heshid oy kugu raagto waa isiisiinaysaa moogta dhibka jira marka waxa waaye wax kale ma jiraan dhib kale ma jirto Soomaaliya dagaalkii sokeeye ka dhacay burburkii xamar ka dhacay boobkii kufsigii guryihii la iska dhacay ayaa fidnadan wada ummadii marka inay tiraahdo wariyaa dambi baan galnay dambi aan annaga galnay ilaahay naga jaaseynaya intaan is cafino aan toobad keenno aan dowladeennana raacno lagama helayo bal iska dhaaf waxay isku dayayaan xaqdaradii in ay la jiifiyaano bannaan ay xal u helaan inay bannaystaan bay isku dayayaan marka xal lama helayo bal iska dhaaf caaradii ilaahay ayaa sii siyaadaysa marka ani waxaan qabaa xalka ma fogee Soomaali suu Maxamed u sheegay geed hoostiis bay wax ku qaybsan jirtay inta la isku yimaado si qalbi furan loo wada hadlo arrintan murugaysan meel fog ma jirto nuur cadde prime minister xal ayuu rabaa meel ayuu ka yiri aniga qof walbaan la hadlayaa madaxdii iyadoo la og yahay inay carqaldooyin wadaan ayaa la soo daayay ordaa la yiri marka in halka meel dhow laga doono waqtigan ugu yar tiici baa gacanta taaga tiici maxaa ku darsanaysaa erayadaas uu yiri walaalkay aan rabay inaan inagoo waqtigu yiri yahay doodda waxaan ugu talagalnay waqti marka waan soo koobi doonaa insha Allah horta sida uu hore u sheegay waa runtiis anigu intaan ogaa kulay Soomaaliya macawsuhu waa dharka laga xirto marka waa xaq aan u leenahay inaan macawis xirano laakiin faktiga waxay tahay oo taala meesha maxaakiimta ayaga oo jooga maaragta xamar iyo agaarkeeda oo haysta oo awood leh ayay haddana waxay price ku bixiyeen inay tagaan Khartoum 3 shir oo kamid ah ay waliba soo saxiixaan waxa dhab ah oo aad internetka iyo meel walba ka helaysaan in dawladda heshiiska ay saxiixday iyadu ka baxday oo dib ugu noqotay sababta sideed u leeshiin kartaa qof markuu ku soo hor fariisto aad hadal wada dhameystaan oo go'aan ku gaartaan haddana intuu baxo Ethiopia tagayo markii la yiraahdo no saxiix u saxiix dhahayo maya marka horta taasi aa dhibaatada keentay yaana la iska indha tirin ta kale jirtana waxay tahay of course ma aha in lagu bedelo intii dhacday intii ka horeysay 9 ilaa intii ka dambeysay waxa ka badan ama inta dhimatay ama lagu dilay dawladda Ethiopia ku dishay 60 maaragtay 6500 iyo halkaan milyan displacement lagu sameeyay ta kale waxa arkaysaa wariyaashii joornaaladii la xiraa waxa batay burcad badeedkii badatay oo ilaa maaragtay saldhig oo ah maaragtay Puntland iyo areadeeda oo maaragtay maalin walba lagu qafaasho gobollo badan oo deganaa oo ammaan ahaa oo ay ka mid tahay gobollada dhexe oo ay ka mid tahay Laascaanood area ayaa hadda waxa ku batay in journalismkii lagu waxeeyo waxaas oo dhanna waxa fangareynaysa waa dawladdan iyo maaragtay partnerkeeda Puntland ta labaad waxa u baahan tahay in la ogaado tan ah oo necessary ah Ethiopia waa cadow Soomaaliya ay leedahay dadka ku dagaalamaya ee la dagaalamaya ka soo horjeeda morally iyo mentally iyo maaragtay dhinac walbaba waxaan aaminsanahay inay xaq ku taagan yihiin sababta maadaama cadow iska waxaynaysid xaq ayaad ku taagan tahay waana xaqay wuxuu leeyahay ta labaadna ogaada tis maanta maaragtay waa maalin adduun buugta ayaa geli doontaa qof walba waxa uu kasbaday waana la isaga daba imaan doonaa runtiina waa reality ta kale dhibaatada haysta Soomaaliya waxay tahay nin walba wuxuu rabaa ninka adeerkiisa markuu qabsado oo maaragtay madaxtinimada qabsado inuu free ride ku helo anigu talada ahaan waxaan soo jeedin lahaa dadka daawanaya adeeryaalo iskuulaadka inta ku noqotaan wax barta qof walba waxaad xaq u leedahay baad heli way dhamaatay this is the 21st century
ma aha 19th century in lagu jiro